شعبك بلان مسؤول دالي كرا عدالة دوني كرا ويد الميغا كايلالي كرا ديحا وهيا من كرا ودوب محمود خليف تتعود سدي ودوب دوقة مقالة مينيابوليس جيكوب فراي ayaa taageeray musharaxa madaxweynaha Puntland injineer Maxamuud Khaliif Jabiye waxa uu sheegay duqa magaalada Minneapolis inuu soo booqan doono Puntland hadii Maxamuud Khaliif Jabiye loo doorto madaxweynaha Puntland doorashadan dhici doonta 2019 duqa magaalada Minneapolis Mayor Jacob Fry ayaa xafiiskiisa ku casumay musharaxa xilka madaxweynaha Puntland injineer Maxamuud Khaliif Xasan oo loo yaqaano injineer Jabiye. Well, we're very excited about you. Thank you. And we love that you have a deep connection to the city of Minneapolis. soo dhaweyn diiran kadib mayorka ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan sida weyn ee uu ugu faraxsan yahay in injineer Jabiye uu soo ajiibay casumaadiisa sidoo kalena mas'uuliyiin kale ayaa soo dhaweynta ku weheliyay duqa magaalada Minneapolis. When you win, I'm going to come visit. Well, thank you. So you win first, and then I'll come visit afterwards. All right. gudoomiyaha degmada lixaad ee Minneapolis mudane Cabdi Warsame iyo la taliyaha mayorka Cabdulquduus Donyaali ayaa sidoo kale kamid ahaa madaxdii injineerka ku qaabilay kuna soo dhaweeyay aqalka weyn ee looga arrimiyo magaalada Minneapolis ee loo yaqaano City Hall. Mayor Fry ayaa sheegay in injineerku muddadii uu ku noolaa gobolkan Minnesota dhinaca dhaqaalaha wax badan uu ku soo kordhiyay. Well, you clearly have a wonderful perspective on how to bring jobs to Puntland, as you've been doing it here quite a bit in Minneapolis. I understand you employ about 800 people. Maxamuud, waxaa la hubaa inaad khibrad u leedahay iyo aragti ku aadan sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dadka reer Puntland sidii aad hore shaqooyin ugu abuurtay dadka reer Minneapolis. waan fahmayaa oo ku dhawaad 800 oo qof ayaad shaqaalaysiisay. Yes, thank you. Injineer Jabiye ayaa sheegay in shaqooyinkii wanaagsanaa ee dhinaca dhaqaalaha ee uu ka qabtay gobolka Minnesota uu qorsheynayo kuwa ka wanaagsan inuu ka qaban doono dalkiisa hooyo hadii loo doorto xilka madaxweynaha ee Puntland. duqa magaalada Minneapolis ayaa taageeray musharax injineer Jabiye وعدنا كمري إن وصاب وقندون بنتلان قارتا جناعسد محمود خليف لدورتو. Well, we're very excited about you. Thank you. And we love that you have a deep connection to the city of Minneapolis. Yes. It's obviously with the largest Somali population in the entire world outside of Somalia. It's a relationship that we look to foster and improve and strengthen everywhere. I am not joking when I say I want to come visit. I very much look forward to visiting. Sister city relationship with Bosaso. Puntland ayaad soo booqan doonaa goorta lagu doorto oo aad guulaysato. aad ayaana ugu faraxsanahay Maxamuud Khaliifow. waxaan jeclahay xiriirka qotada dheer ee aad la leedahay magaalada Minneapolis. waa meesha kaliya ee dunida bulshada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ah ay degan yihiin adduunka oo dhan. annaga iyo Soomaalida waxa naga dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan oo aanu ku naaloono. waa xiriir aanu ka shaqeynayno si kobcintiisa iyo adkeyntiisa meel walba aanu joogno. marka aan leeyahay haddaad guulaysato waan imanayaa Puntland arintaasi igama aha kaftan. arintaasi waa iga dhab waanu ku rajo weynahay guushaada. sidoo kale haddii ay jiraan wax kale oo kugu taageeri karo fadlan ila socodsii aan sameeyay. sidoo kalena waxaa xusid mudan in sanadkii 2015 injineer Maxamuud Khaliif lagu marti qaaday asaga iyo qoyskiisaba aqalka cad ee looga taliya dalkani Mareykanka xilligaas oo uu talada hayay madaxweynihii hore ee dalkani Mareykanka madaxweyne Barack Obama. ودور اللي بان ودور شعبك بلان مسؤول دالي كرا عدالة دوني كرا ويد الميغا كايلالي كرا ديحا وهيا من كرا ودوب محمود خليف تتعود سدي ودور